dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Deni waxa uu maanta dib ugu soo laabtay caasimadda Garowe kadib maalmo uu safar shaqo u joogay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug halkaasi oo madaxweynuhu kaga qayb galay shirkii dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya oo guul ku soo dhamaaday iyadoo wajigii kale ee shirkaas oo arrimaha Soomaaliya iyo shaqooyin badan oo masiirka dalka ku saabsan la filayo halkaasi inay ka sii socdaan ayaa haddana madaxweynuhu maanta ku soo laabtay Garowe si uu uga qayb galo aaska Allahu naxariistay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Abshir Faarax madaxweynihii dowladda Puntland Allahu naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi waxay ahaayeen laba tiir oo muhiim ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo Puntland ba muhiim ku ah oo ka baxay waxa ay ahaayeen laba mas'uul oo door ka qaatay dowladnimada Soomaaliya kaalin ku lahaa mar walba ilaalinta nabadgelyada iyo hagaajinta mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya dabcan Soomaaliya iyo Puntland bay soo shaqeeyay Allahu naxariisto marka madaxweynuhu waxa uu soo laabashadiisa halkan Garowe la xiriirta ka qayb galka aaskaasi aad iyo aad u mahadsantahay